مسؤوليinta sarsare ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa kulan kula qaatay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala gudaha dalka gaar ahaan kuwada jaamacadaha ka barta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay sidii saxaafadda iyo wasaaradda arrimaha dibaddu ay iskaga kaashan lahaayeen siyaasadda arrimaha dibadda iyo ictiraaf raadinta waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire waxaanu sharaxay kulankani xagga siyaasadda saxaafadda laftigeedu waxay ku leedahay door weyn waxa la yiraahdaa dawladdu waxay ka kooban tahay saddex tiir waa tiirkii sharci samaynta iyo tiirka fulinta iyo tiirka sharciga tiirka afraad ee soo raaca siyaasadda saaxadda siyaasadda waxa weeye waa media waa saxaafadda ayaa soo raaca saxaafaddu waxay mas'uul ka tahay inay mas'uuliyiinta ku ilaaliso xilkooda iyadoo ka wakiila shacabka dabcan xilka laftigiisu wuxuu la imanayaa mas'uuliyad oo markaad xilka gudanayso dabcan waa inaad xaq dhowrto cid kalena xaqeeda saxaafaddu si xilkeeda u gudato siyaasadeed waa inay madax banaanaato shaqada ugu weyn ee wasaaraddu ay hayso arrimaha dibadda waxa weeye sidii ay u sameyn lahayd xiriir dhow العالم كنتي سكر ولا يلان لهي محمود عبد جامع حوتو قدوميها ururka suxufiyiinta Solja agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Cabdinaasir Axmed Xirsi iyo wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi Liibaan Yuusuf Cismaan oo halkaas hadalka iska daba qaatay waxay yiraahdeen runtii saxaafadda Soomaaliland waxay u soo dhabar adeegtay muddadii Soomaaliland jirtay in kaalin muhiim ah ka qaadato waajibaadka dastuuriga ah ee saaran ودستورك جدير runtii in qarankan ugu adeegto si hufan in difaacdo iyo in horumarkiisa ka shaqeyso runtii wasaaradda arrimaha dibaddu hawsha ay u hayso qaranka oo ah hawl ballaaran oo ay ku mitasho dhamaan hay'adaha dawladda iyo dhamaan qaranka oo dhan ay ku mitasho baalasha ay wasaaradda arrimaha dibaddu ku duulayso loona baahan yahay in aynu si wada jira u hawlgalnana waxa kamid ah saxaafadda madaxa bannaan inay hore runtii ay u dhacdaabay hayd inaynu mar hore bilownaabay hayd saxaafadda wax ku leh ururada bulshada wax ku leh NGOs-ka wax ku leh jaamacadaha wax ku leh muwaadiniinta oo dhan ba wax shaqada arrimaha dibadda hadii aan qaranka oo dhan iska kaashanin waxay noqonaysaa arrin siyaasi bay noqonaysaa kulankaas ayaa waxa gabagabadiisii suxufiyiintii kala duwan ay ku sugnaa ay su'aalo iyo talooyin kala duwan u soo jeediyeen mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyaguna mas'uuliyiintaasi ay su'aalaha ay weydiiyeen suxufiyiintu uga jawaabay Waciid Abdullaah Ismaaciil Beershiya telefishinka Universal Hargeysa